mushaharkayga ayaa ka yar kiisa asiga mar walba wuu safraa anigana guriga ayaan joogaa iyada carruur badan ayay dhashay anigana waxba maanan dhalin gurigiisa wuu gatay keegana waa ijaar asiga arintaas ayuu haystaa anigana ma haysti nafsadaadu marnaha barbar dhigin nafsad kale sababtoo ah ma ogtid adiga waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas uu ka qaaday noqo mid mar walba ku faraxsan ku qanacsan sida uu yahay waxa uu haysto halka uu joogo mid ku faraxsan ku qanacsan noqo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa markaas ku siinaya wax ka sii badan dadaal oo shaqayso oo noqo qof gaara halkaas laakiin marnaha dhihin muxuu u haystaa anigana maxaan u haysan waayay ogow waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey qof kale ayaa jirta oo hadaf u ah waxyaabaha adiga aad haysatid oo ka mid ah caafimaadka iyo guriga aad seexatid iyo wix la mid ah oo dhan qof kale hadafkiisu waxay tahay halkaas inuu soo gaaro noqo mid mar walba ku mahad celiya waxyaabaha uu haysto oo dhan sababtoo ah wax badsi wax beel ayay leedahay